سبحانك يا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين دمان مرتدى شرفت عليه دومركا وكبلا بيا always do mel with خاتم سو غارسين سره رجع قدوميها شاليدا maamul goboleedyada iyo dhammaan maamul goboleedyada nagala soo qayb galay maanta xafladan qiimaha badan waxaan dhamaanteed ku salaamay salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aniga oo ku hadlaya magaca dawlad goboleedka Khaatumo iyo tan shacabka reer Khaatumo waxaan codsanayaa inta wasiirku inoo wado inaynu dhageysano fadlan saasaad ka codsanay iyo tan shacabka reer Khaatumo meel kasta oo ay joogaan not only wadankiina ahayn but meel kasta oo ay joogaan waxaan idin leeyahay mahad wanaagsan ma idin hayaa dhamaanteen sida wanaagsan ee sharafta leh ee quruxda badan ee aad u soo agaasimteen munaasabadan aynu ugu dabaaldegayno sanad guuradii saddexaad ee maalintii dhidibada loo aasay dawlad goboleedka Khaatumo State of Somalia intiina soo ajiibtay ee ka soo qayb gashay xafladan waxay muujinaysaa sida ay u garab taagan tihiin habeen iyo maalin midnimada qarannimada ummadda Soomaaliyeed ummadda iyo dalka Soomaaliyeed labadaba oo ah waxa ay u taagan tahay Khaatumo wixii loo aasaasay weeyaan Khaatumo waa didibka ugu muhiimsan in ay midnimada Soomaaliya ay socoto oo aanay marnaba hakan waxaan sidoo kale salaan qaali idinka sida madaxweynahayga iyo madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia mudane Professor Ali Khaliif Galeyd iyo dhammaan dawladda maamul goboleedka Khaatumo ayaan salaanta idinka sidaa waxaan doonayaa inaan idin sawiro picture halgankii ay soo martay Khaatumo madal kulmisay oo meeshii weeyaan dhammaan qaybaha kala gedisan ee uu ka kooban yahay shacabka Soomaaliyeed ee dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo SSC la oran jiray ee waqooyiga Soomaaliya midnimadii ma ku jirnaa ee waqooyiga Soomaaliya oo ay hormood ka yihiin hoggaanka sare ee dhaqanka waa garaadadeenii weeyaan habilaawina taas haddooyaa sawirataan dadka meesha isugu yimid waxay ka kooban yihiin rag badan aqoon-yahano ururka haweenka iyo kan dhalinyarada iyo shacabka intiisa kale looma kala harin maalintaas waxay hayeen 4,000 oo qof askarina mu joogin qof security oo qaabilsan mu joogo dhahaya kulligood way aamusnaayeen oo waxay doonayeen inay dhowraan waxa halka ka soo baxay gorfayn iyo wada tashi dheer kadib waxa isla meeshaas oo ama madashaas ka dhacday magaalada taariikhiga ah waa Taleex weeyaan laguna yagleelay dawlad goboleedka Khaatumo State of Somalia taariikhdu waxay ahayd waa 12kii bishii January 2012 oo ahayd munaasabad caawa aynu uga dabaaldegayno magaaladan Oslo ee magaala madaxda dalka Norway dhammaan beedaraafyada adduunka oo dhan dad badan baa nala qaba caawa inkastoo ay Khaatumo soo wajaheen caqabado fara badan haddana 3 sano ayna soo dhaafay ama ugu dambeeyay waxaynu gaarnay guulo la taaban karo oo ay ugu horeyso xaqiijinta midnimada iyo qarannimada Soomaaliya
sidoo kale dhismaha haykalkii dowladnimo iyo horumar inkastoo uu xaalku yahay faanoole fari kama qodna guulaha kale ee ay khaatuma gaadhay way badan yihiin waxaa ka mid ah nidaamka ku-meelgaadhka ah in aynu nidaamkii ku-meelgaadhka ahaa looga gudbay mid rasmi ah waxaa suurto gashay in khaatumo ay yeelatay golo shacab doorasho xor iyo xalaal ah oo uu ku soo baxay madaxweyne professor cali khaliif galay madaxweynuhuna markiiba uu soo dhisay goolihii xukuumadda khaatumo haddaba waxaa sharaf iyo karaamo mudan madaxweynihii hore mudane maxamed yuusuf jaamac indhasheer ahaantii ay taariikhdu xusi doonto meesha wanaagsan ee uu gaadhsiiyey khaatuma isaga iyo tiimkii la shaqaynayay hadda waxaan soo galay wasaaraddeedii weyaan haddii aan si gaar uga warramo hadda wasaaradda magaceeda waxaa la idhahdaa waa wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaaliyad iyo qurba joogta jaaliyadaha oo jaaliyadda haddii aan si gaar uga hadlo hadda wasaaradda waxyaabihii ii soo qabsoomay ilaa iyo intii aan wasaaradda xilkeeda hayay aniga oo dareemaya culayska mas-uuliyaddani ay leedahay maadaama wasaaraddani ay tahay muraayadii lagu arkayay khaatumo mahmaah soomaaliyeed ayaa waxay tidahdaa mahmaah baxsan iyo caawa ayaa waxay tidahdaa gamco wada jir ayay wax ku gooyaan sidaa daraaddeed geed gaaban ama geed dheer haddaad dadka soo hormarso iyo mid gaaban ayaan u fuulay sidii aan u dhisi lahaa tiim waxda ugu weyn tiimku waa aad u muhiim yahay hawshan baaxadda weyn intana hadda oran doono ma qorra laakiin waxaan doonaya in xaggaas ka idhaahdo sabab darteeda ugu horeysa waxaan fursaddan qaaliga uga faa'iidaysanayaa in aan u hambaleeyo garaadkeenna cabdirisaaq garaad soofe duraan oo lagu caleema saaray magaalada buuhoodle waxaan kaloo doonayaa inaan u mahadnaqo aftaag production igumay odhan tan dheh laakiin waxaan ahay waxay u tahay arrin aan doonayo inay ogaadaan aftaag production although ay yihiin walaaladay dhammaantood inta ka shaqeeya oon aniguna ka shaqayn jiray behind the scenes xagga dambe ka shaqayn jiray in aanan maantan halkan soo gaadheen haddii aanay igu garab taagnayn haddii aan aad uga hadlo shucuur fara badan bay kicinaysaa markaa sidaa daraaddeed waxyaalaha qaarkood waan ka gaabsanayaa laakiin waxaan u sheegayaa siciid iyo ismaaciil labadaba siciid waa walaalkayga yar weeyaan siciid ismaaciilna waa walaalkayga weyn weeyaan inaan labadoodaba abaalka aan u hayo oo li ilaahay uu ka abaalmarin karo taasna waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan xaggan maanta ka sheego in dhammaantayo ayna dhashay hooyo habeen iyo maalin u taagnayd arrimaha khaatumo ilaahay uu ku naxariiso hooyaday sahli waxay ku dhimatay magaalada laascaanood oo ah hadda magaalaha maaragtay aynu doonayno inaan soo ceshino oo dadaal u samayno hooyo habeen iyo maalin wuxuu ahaa hamigeedu khaatumo inay cagteeda ku istaagto oo ay reer khaatumo noqdaan dad masiirkooda ka tashada iyo aayahooda ka tashada waxaan kaloo doonaya inaan also aan mahadnaq usoo jeediyo haddaan mawduucaasi wado waxyaala badan uu kicinayo iban kixii aan hore sheegay ka badanba sidaa daraaddeed waan aadan uga durkaya taas
waxaan doonayaa oo soo inaan mahadnaqo Bashiir aw Jaamac waddanka Norway magaalada Oslo degan banaankeeda صح سمع بدن كده إنه دلال وين أسميه هبين يمالين إن أي خاطم وحنا قطع ما هذا قيا دمان دد كهبين يمالين تاجن الله شقيه سجى وما أنت حفلتنا أي نص وقتك شيء ما حيلا إيه ما تدلال كود أي نص مليان كمان هنقيا وريه نقرنك وإفراح علي ياسر ويو هبين يمالين يدنو تاجن سي أي خاطر وحنا قلنا لهيد ماشي شوكنا ديار واحد هنا يصوت راقوشن بيروي شدير وصوم مرتو سيدي أي خاطرو وجرجاري لهيد وتاجن لهيد هذا واحد سوق على هالكي ودم ميسي هذا بقى بلنتين وامحي بلنتينو وإن عينو وإن عينو مدينو مسكح دينا مروقينا إيا مالكينا si ay khaatumo u gaadho meesha aynu higsanayno نبانو سو waxaan u mahadnaqayaa waa tii ugu dambeysay maanta way ku badiyay qof kasto oo intu xadan soo istaagay caawa ina la wadaagay kalmado wanaagsan oo murti qaarkood u badnaayeen sida walaalkii xaqa fadhiya iyo oo soo walaalkii inuu yimid all the way from New Zealand والله إنه سلنا أبي وفرت هذا النوعين دور يلا بتنسى عضو بديارة صو صارنا إنه عاو هالكان نقص وقلنا ولكن محمد سليمان اللي هو وقتي الكبيرين ما أنت واحد نصيب يا شغل صوينا نعرفه ده أنا مدفر بدنا نعرف وسيرك عن قعد سنة يوم كأجنا نجي لابنه كأجنا ويجيب ما دام أن جد رسول الله كأجنا قلنا وقتنا يحسنا نين أضيع يا نعرف دور يوم إلهي بابا ما كيسوي هيد الميسي وواقع ومبارك عبد الرحمن وقصوفنيا waxaan isoo noqonaa oo weeyna maartay waqti badan oo maartay aan saaray taasna waxaan doonayaa isaga inaan ahdo soo dhawo iyo dhammaan qof kasta oo maanta halkan yimid waxaan leeyahay waa mahadsantihiin وانا ندين ما حدنا قياسين ونكسنا على أي صور مرتي عشرتين وحنا نشيلنا إن شاء الله إن نقول خاتم وقول قاعدوا صرا إنه لما أنتنا جماعة سبتجينا أول السلام عليكم.